soo dhawaada khiyarta qiimaha badan leh. Maanta waxaan ku hadlanaa lecture-keeni saddexaad ee course-ka research-ka, inagoo ku base gareynaynay runtii research project-ga ardaydu qoraan. Waxaan ku hadli doonaa markaa lecture-keeni saddexaad oo ahaa markaa chapter-ka labaad ee literature review-ga. Markaa labada level ee hore ee bachelor degree-ga iyo master-ta ardaydu waxay qoraan markaa waa empirical research-koodu oo inta badan waxay ku tiirsan yihiin markaa literature review. oo shaqada ugu muhiimsan ee la qabto research waa literature review, sababtoo ah waa continuous process, waa wax kula soconaya runtii bilowga ilaa dhamaadka. laakiin caadiyan ardaydu waxay moodayaan uun literature review-ga chapter la qoro uun in la qoro keliya chapter 2 oo keliya, laakiin waa shaqada ugu culus ee la qabto research waa literature review-ga, sababtoo ah marka tobigaaga dooranayso waxaad lagaaga baahan yahay inaad review soo samayso, literature review. chapter 1 oo kale markaad qorayso background of study-ga iyo problem statement-ga ayagana review baa laga rabaa. gebi ahaanba chapter 2 waa literature review. chapter 3 oo kale markaad dooranayso methodka research-kaaga iyo dadkii hore kii ay isticmaalaan adeegayso asagana review baa lagaga baahan yahay, literature review baa lagaga baahan yahay. chapter 5 oo kale marka sectionka marka discussionka oo waxa laga rabaa inaad isbarbar dhigto findingskii dadkii hore soo heleen iyo ka adu aad heshay, markaana waxa laga rabaa review. markaas aad arkaysaanba literature review-gu waa shaqada ugu muhiimsan ee research la qabto oo bilow ilaa dhammaad uu inala soconaya. marka waa shaqo saa u muhiimsan weeye. haddii aynu qeexno literature review-gu waxa la doonayaa uun inaad indha-indhayso oo aad falanqayso oo aad qiimayso shaqooyinkii kaa horreeyey qabteen dadkii cilmi baadhistii kaa horreeyey, oo aad markaa shaqadaada eegto. kow inaad analyze garayso oo evaluation iyo qiimeyn ku samayso markaa ayaa lagaga baahan yahay. ujeedada laga leeyahay waa maxay markaa literature review? waa in aad fahanto markaa current knowledge-ka, inaad fahanto current knowledge-ka ayaa ah oo aqoonta hadda taalla maxaa la kofargariyay ma isweydiinana. kow iyo waxyaabaha aan laga hadalay runtii research gaabka jira aynu ka hadli doonaa, inagoo runtii xogteena ka baaran doona markaa research articleska iyo buugaagta ayaynu ka baaran doonaa, iyo wax kastoo markaa resource kastoo xogteena la xidhiidha ayaynu ka baaran doonaa. markaasna hore idinku sheegaba literature review-gu waa continuous process, waa wax inala soconaya dhammaadka ilaa markaa finishing-ka in shaqada gabagabeynayno wuu inala soconaya literature review. sidoo kale waxa weeyaan inaad aqoon guud ka qaadato oo aad fahanto current knowledge-ka wixii hadda laga hadlay, iyo sidoo kale inaad fahanto theories-kii hore iyo methodskii hore isticmaaleen dadkii kaa horreeyay topican wax ka qoray, iyo cilmi baadhayaashii kaa horreeyay waxa weeyaan theories-kii ay diiradda saareen inaad eegto muhiima, oo adiguna markaa fahanto gaabka jira ee aan laga hadal ayaa muhiima. markaa inaynu indha-indhayno dabeetana soo saarno errorska iyo meelaha markaa mistake ka dhacay. marka waxaa la idhaahdaa good literature review-gu ma aha un keliya inaad summary soo samayso meelaha sourceska, laakiin waa inaad analyze garayso oo aad qiimayso oo aad fahanto researchkii ka horreeyay wixii ay qabteen iyo wax aan laga hadalba, si aad markaa uga qaadato clear picture aad uga qaadato. marka keliya maaha in summary lasoo sameynayo, waa inaad markaa fahanto oo dhuuxdo ayaa lagaga baahan yahay literature review. kow marka koobaad waxaa wanaagsan markaad bilaabayso literature review waa inay jirto markaa su-aalaad qabtad isweydiinayso, waa inay jirto research objective marka aad doonayso isweydiinaysa waa inay jirtaa, oo waa inaad markaa daad focus garayso aad caadaysaa markaa identify the most relevant meelaha markaa resourceska ugu muhiimsan
waa inaad ayadana aad caddayn karta. sidoo kale meelaha ugu wanaagsan ee markaa aan wax ka baaran karno waxaa ka mid runtii academic databaseska meelaha library-ga ayaa ka mid ah iyo search engineska oo ay ugu caansan tahay markaa Google Scholarku ayaynu ka baaran doonaa practical ahaan ayaynu ku arki doonaa inagoo markasta isticmaalana keywords aynu ku baarano aynu isticmaalano oo ay ka muuqan karaan markaa variableskeeni iyo locationskeeni ay ka muuqan karaan. meelaha ugu muhiimsan aynu ka baaran karno waxaa ka mid ah jaamacadda ardaydii ka horreeyay waxay qoreen Google Scholarku ah meelaha ugu muhiimsan sida library-ga kuwa yoogaas oo dhan baa ugu muhiimsan. waxaa jira website-ka u hooseeya oo lagu jabiyay markaa articles-ka xidhan oo markaa waxa weeyaan saa ka muuqata waa removed barriers on the way of the knowledge waa wada kasta oo markaa aqoonta hortaal barrier hoos yaalla in la jabiyo ayaa loo baahan yahay markaa waxa weeyaan waa barrierskaas lagu jabiyaa article-ada xidhan asagana waynu arki doonaa tusaale aynu ka bixin doonaa insha Allah markaynu practical ahaan sameynano. abstract-gu waa qoraal kooban oo la qoro marka u dambaysa oo runtii nuxurka lagu soo gabagabeeyo ilaa 300 eray ka kooban. meelahaad markaa akhriyayso ugu muhiimsantay markaad articleska eegto meelahaad akhriyayso ayaa ugu muhiimsan haddii markaa uu ku anfaco oo runtii ku noqdo mid anfacaya waxaad eegaysaa uun inaad check reference-kii aad eegto oo markaa reference-kiisii dib u raacdo waayo waad isticmaali doontaa adiguna. marka meelaha ugu muhiimsan ee la akhriyo markaad xog raadinayso inay markaa ku anfacayso in kale waxa ugu muhiimsan abstract-ga ayaa ugu muhiimsan ayad eegayna. siyaabaha markaa loo qiimeeyo waxa weeyaan evaluation the sources kan u qiimeynano kow waxa weeyaan inaad eegto markaa credibility iyo quality-ga meeshan aynu wax markaa ka baaranano inaynu eegno markaa datada credibility-geeda iyo quality-geeda inuu eeganaa inagoo kow ka eegana markaa ciddan wax qortay author-ka experience ma u leeyahay meelahan lagu publish gareeyay ma tahay meel markaa lagu kalsoonaan karayo oo wax laga xigan karayo mise waa meel markaa blacklist-ga ku jirto oo aan markaa habboonayn in laga xigto. sidoo kale waxaan isweydiinaa ma jirtaa peer review loo sameeyey waxyaabo markaa ciddii qortay articleskan loo comment gareeyay oo markaanba lagu dhaleeceeyay ma jirtaa. sidoo kale waxaan isweydiinaa intee in leeg buu nala xidhiidhaa tobigeen intee in leeg ayuu nala xidhiidhaa ayaynu eeganaa. kani waa summary yar oo kooban amba table yar oo kooban cafwan taa haddaan kusoo yaro noqdo markaynu eegana markaa 3 siyaabood baynu ka eeganaa. kow waxaan aad ka hadlayso horta ma kula xidhiidhaa ayaynu ka eeganaa. sidoo kale waxaan ku dari lahaa halkii magaaladii laga fuliyo laga fuliyey oo xagga contextka ma kula xidhiidhaa xagga termkana ma kula xidhiidhaa. tusaale ahaan haddaad qorayso 2026 aad qorayso research-kaaga ma la qoray 2024 2025 ma la qoray ugu dambeyn waayo waxaa la idhaahdaa 5 years wixii ka dambeeya sayniska waa outdated maybe outdated noqon karaa ayaa laga yaabaa. waxaa laga yaabaa duruuftii 5 sano ka hor jirtay inay isbedeshaba ayaa suuragala aadkani waa table runtii aanu markaa sourceskeeni aan kusoo ururinayno xurkoodii source information-kii research objective-kii problem-kii findings-kii lasoo helay iyo markaa limitation-kii. markaa limitation-ku waa challenge kasta oo qofka ka hor yimi caadi ahaan qofka researcher-ka waxa wanaagsan markuu research-kiisa dhammeeyo inuu 2 talaba bixiyo. kow limitation-kii qabsaday iyo challenges-kii jiray inuu sheego iyo inuu sheego meelaha father of research-ka oo u baahan in cilmi baaris kale laga fuliyo u baahan ayadana waa muhiim inuu sheego. implication-ku waa waxyaabaha ka dhasha markaa findings-kaaga ayaa iyada kamid ah. waxaa kamid ah markaad hesho xog kugu habboon oo ku anfacaysa inaad markaa si fiican u akhrido ood note ka qaadato adigoo markaa si carefully u akhriya markaa key findings-ka iyo methodology isticmaaleen iyo markaa theoretical framework adoo isticmaalaya ayaa muhiim ah. marka waxaa muhiim ah inaad
summarizing soo samayso iyo paraphrasing. waxaa la diidayaa inaad xogtii markaa copy and paste siiso, laakiin waxaa loo baahan inaad soo summarize garayso, dabeetana aad samayso paraphrasing aad ku samayso, marka little change aad ku samayso. waxaa looga hortagayaa markaa inaad samayso keliya copy and paste, oo inaad markaas summarize garayso main pointska kasoo qaadato xogta, dabeetana aad wax ka bedesho fahankaaga markaa ayay fududeynaysaa.